maanta ay ku beegan tahay kowda Ciidul Adha ayaa guud ahaan gobolkan Shabeellaha Hoose waxaa loogu ciiday si isku wada mid ah maamulka gobolka Shabeellaha Hoose mas'uuliyiintiisa kala gedisan ayaa maanta fagaaro ku yeelay degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay salaadii ciida kula tukadeen boqolaal shacabka reer Afgoye waxa ayna sheegeen mas'uuliyiinta qaarkood oo salaadii ciida kadib la hadlay warfideenada in ay u hambalyeynayaan isla markaana dadku ay maantu guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose shacabka ku nool ay si isku wada mid ah ay ugu ciideen hadaba gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose dhanka arrimaha bulshada Cumar Carabey oo la hadlay TV-ga Koonfur Galbeed ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta shacabka Shabeellaha Hoose iyo sida ay isugu duubiyeen marka laga hadlayo maalmaha farxadda iyo sidoo kale wax qabsiga gobolka Shabeellaha Hoose si kastoo ay amuurta haataba guud ahaan gobolkan ayaa maanta degmooyinka laga ciiday waxaa ka mid ah degmada Afgoye Baraawe Qoryooley Marka Shalambood Walaweyn iyo deegaano ku dhow gobolka gaar ahaan sida Buulamareer iyo Golweyn oo ka mid ah gobolkan Shabeellaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre iyo saraakiil ciidan oo ka mid yahay taliye xigeenka ciidamada daraawiishta ayaa ku dhex lugayay bartamaha degmada Afgoye iyagoona hareerahooda ay socdeen ciidamada laamaha amniga waxaana intaasi kadib ay u dhaadhaceen xerada Todaamun oo lagu xanaaneeyo caruurta agoonta halkaas oo gudoomiyuhu iyo saraakiisha ciidanku ay kula kulmeen maamulka xerada Todaamun waxaana kala sheekeysteen xaaladda waxbarasho ee caruurta danta yar iyo sidoo kale caruurta agoonta ee lagu xanaaneeyo xarunta Todaamun isxogoleysi kadib ayaa Sheekh Aadan oo isagu ah gudoomiyaha guud ee xarunta Todaamun waxa uu mas'uuliyiintu u sheegay in loo baahan yahay in wax weyn laga qabto baahida xilligan soo food saartay caruurta agoonta ahi kuwaasi oo muddo dhowr sano ahi aanu helin wax taakulayna isla markaana Sheekh Aadan waxa uu dalbaday in dawladda dhexe iyo tan koonfur si kastoo ay amuurta haataba guud ahaan gobolkan Shabeellaha Hoose ayaa maanta si isku wada mid ah loogu ciiday Cabdi Fataax Cali Cumar Tawakal Koonfur Galbeed TV Shabeellaha Hoose.